dhammaan inta loo doortay marka koowaad aan u hambaliyeeyo mas'uuliyadaha madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne ku-xigeenka intii hore loogu doortay mas'uuliyadda guddoonka baarlamaanka oo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa sidii uu yiri guddoomiyihii meesha aan ka hadlay Galmudug saasay ku dhammaystirantahay hambalyo kadib waxaan ugu ducaynaynaa intii mas'uuliyadahaas loo doortay ilaahay inuu waafajiyo gudashada mas'uuliyadahaas waxaan ku gubaabinayaa baarlamaanka iyo shacabka Galmudug iyo dawladda mas'uuliyadda fulinta leh oo la sameyn doono iyo madaxda hadda aan sheegay in gacmaha iyo garbahaba la isqabto laguna dadaalo Galmudug meeshii ay ku dhacday in inta laga soo qaado meel ka fiican la geeyo Galmudug ay dan u noqon doontaa waxay dan u noqon doontaa aakhirada iyo adduunka dadka mas'uuliyiinta ah hawshaas loo dhiib waxaan leeyahay 7 bilood iyo waqti la jira natiijadii kama dambaysta ahayd ay maanta halkan lagu gaaray inta guuleysata hambalyo inta laga guuleystay oo sida sharafta leh halkan u soo istaagtay oo hambalyeysana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyagana waa u hambalyeynaa waxaan leeyahay ummadda reer Galmudug maanta basiirkiinu gacantiinu ku jira maamulkii hore la sameeyay waa naga xoogaa cuslaaday waad aragteen wixii khilaaf iyo kala taagnaan aan ku gooyn karno inaysan meelna la geynayn waa aragteen markaan aan bedelno dabciga aan kula dhaqanno dawladnimada iyo wax wada yeelashada go'aan wada gaarista madaxda dhammaan intii hore loo doorto baarlamaanka ahayd iyo inta madaxda dawladda Galmudug oo maanta la doortay oo madaxweynuhu ugu horeeyo sidii hadda madaxweynuhu halkan ka ballan qaaday waxaan rajaynaynaa inay gacanta u taagaan inta dareensan in wax ka xun yihiin dhammaan Galmudug oo isku duubanna ay hore ugu socoto inay horumar samayso asaageed la tartanto dawladda federaalka iyo beesha caalamkana gacanta ay ka mudan yihiin inay weydiistaan mudnaanna ku weydiistaan aad iyo aad ayaad walaalayaal u mahadsantihiin dhammaan intii qayb ka soo qaadatay oo dhan waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo mahad celin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo markii horena lahaa go'aanka kadibna in barnaamijkaani fulo intii la doono oo dadaal geliyay in ka badan waxaan rabaa inaan iraahdo ilaahay Galmudug ha guuleeyo Allah ha guuleeyo Allah ha guuleeyo dhammaantiin waa mahadsantihiin intaasaan ku soo koobayaa waa la daahsan yahay waa mahadsantihiin dhammaan inta loo doortay marka koowaad aan u hambaliyeeyo mas'uuliyadaha madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne ku-xigeenka intii hore loogu doortay mas'uuliyadda guddoonka baarlamaanka oo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa sidii uu yiri guddoomiyihii meesha aan ka hadlay Galmudug saasay ku dhammaystirantahay hambalyo kadib waxaan ugu ducaynaynaa intii mas'uuliyadahaas loo doortay ilaahay inuu waafajiyo gudashada mas'uuliyadahaas waxaan ku gubaabinayaa baarlamaanka iyo shacabka Galmudug iyo dawladda mas'uuliyadda fulinta leh oo la sameyn doono iyo madaxda hadda aan sheegay in gacmaha iyo garbahaba la isqabto laguna dadaalo Galmudug meeshii ay ku dhacday in inta laga soo qaado meel ka fiican la geeyo Galmudug ay dan u noqon doontaa waxay dan u noqon doontaa aakhirada iyo adduunka dadka mas'uuliyiinta ah hawshaas loo dhiib waxaan leeyahay 7 bilood iyo waqti la jira natiijadii kama dambaysta ahayd ay maanta halkan lagu gaaray
inta guulaysata hambalyo inta laga guulaystay oo sida sharafta leh halkaan u soo istaagtay oo hambalyaysana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyagana waa u hambalyaynaynaa waxaan leeyahay ummadda reer galmudug maanta basiirkiinu gacantiinu ku jira maamulkii hore la sameeyay waa naga xoogaa cuslaaday waad aragteen wixii khilaaf iyo kala taagnaan aan ku gooyn karno inaysan meelna la geynayn waa aragteen markaan aan bedelno dabciga aan kula dhaqanno dowladnimada iyo wax wada yeelashada go'aan wada gaarista madaxda dhammaan intii hore loo doorto baarlamaanka ahayd iyo inta madaxda dowladda galmudug oo maanta la doortay oo madaxweynuhu ugu horeeyo sidii hadda madaxweynuhu halkaan ka ballan qaaday waxaan rajaynaynaa inay gacanta u taagaan inta dareensan in wax ka xun yihiin dhammaan galmudugoo isku duubanina ay hore ugu socoto inay horumar samayso asaageed la tartanto dowladda federaalka iyo beesha caalamkana gacanta ay ka mudan yihiin inay weydiistaan mudnaanna ku weydiistaan aad iyo aad ayaad walaalayaal u mahadsan tihiin dhammaan intii qayb ka soo qaadatay oo dhan waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo mahadcelin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo markii horena lahaa go'aanka kadibna in barnaamijkaani fulo intii la doono oo dadaal geliyay iyo in ka badan waxaan rabaa inaan iraahdo ilaahay galmudug ha guuleeyo allah guuleeyo allah guuleeyo dhammaantiin waa mahadsantihiin intaasaan ku soo koobayaa waa la daahsan yahay waa mahadsantihiin dhammaan inta loo doortay marka koowaad aan u hambalyeeyo mas'uuliyadaha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka intii hore loogu doortay mas'uuliyadda guddoonka baarlamaanka oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa sidii uu yiri guddoomiyihii meesha aan ka hadlay galmudug saasay ku dhammaystiran tahay hambalyo kadib waxaan ugu ducaynaynaa intii mas'uuliyadahaas loo doortay ilaahay inuu waafajiyo gudashada mas'uuliyadahaas waxaan ku gubaabinayaa baarlamaanka iyo shacabka galmudug iyo dowladda mas'uuliyadda fulinta leh oo la samayn doono iyo madaxda hadda aan sheegay in gacmaha iyo garbahaba la isqabto laguna dadaalo galmudug meeshii ay ku dhacday in inta laga soo qaado meel ka fiican la geeyo galmudug ay dan u noqon doontaa waxay dan u noqon doontaa aakhirada iyo adduunka dadka mas'uuliyiinta ah hawshaas loo dhiib waxaan leeyahay 7 bilood iyo waqti la jira natiijadii kama dambaysta ahayd ay maanta halkaan lagu gaaray inta guulaysata hambalyo inta laga guulaystay oo sida sharafta leh halkaan u soo istaagtay oo hambalyaysana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyagana waa u hambalyaynaynaa waxaan leeyahay ummadda reer galmudug maanta basiirkiinu gacantiinu ku jira maamulkii hore la sameeyay waa naga xoogaa cuslaaday waad aragteen wixii khilaaf iyo kala taagnaan aan ku gooyn karno inaysan meelna la geynayn waa aragteen markaan aan bedelno dabciga aan kula dhaqanno dowladnimada iyo wax wada yeelashada go'aan wada gaarista madaxda dhammaan intii hore loo doorto baarlamaanka ahayd iyo inta madaxda dowladda galmudug oo maanta la doortay oo madaxweynuhu ugu horeeyo sidii hadda madaxweynuhu halkaan ka ballan qaaday waxaan rajaynaynaa inay gacanta u taagaan inta dareensan in wax ka xun yihiin dhammaan galmudugoo isku duubanina ay hore ugu socoto inay horumar samayso asaageed la tartanto dowladda federaalka iyo beesha caalamkana gacanta ay ka mudan yihiin inay weydiistaan mudnaanna ku weydiistaan aad iyo aad ayaad walaalayaal u mahadsan tihiin
dhammaan intii qayb ka soo qaadatay oo dhan waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo mahadcelin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo markii horena lahaa go'aanka kadibna in barnaamijkaani fulo intii la doono oo dadaal geliyay iyo in ka badan waxaan rabaa inaan iraahdo ilaahay galmudug ha guuleeyo allah guuleeyo allah guuleeyo dhammaantiin waa mahadsantihiin intaasaan ku soo koobayaa waa la daahsan yahay waa mahadsantihiin